waana ku faraxsanahay waraysiga ugu soo casuunta radio kulmiye adinka iyo dadka idin dhageystana waa salaamayaa waxa dawladdu ka wado galmudug ma aha dadaal waa dulmi iyo dano lagu galayo magaca dawladda Soomaaliyeed dadkii deegaanka la kala biyo la isku dirayo dhaxdoodii laga abuurayo khilaafaad hor leh qabaa'ilka dadka in khilaaf hore u jiray dhaxdooda waagii hore dadka ku nool gobolada wadanka qabaa'ilad ku isku qabsan jireen baadka iyo biyaha iyo geela iyo dumarka dhaqanka taariikhda Soomaalida hadda waxa lagu soo kordhiyay qabyaalad siyaasadaysan oo kan waxsi kan ka qaad kan u dhac xeerkii wax ku kala xalisan jireen dhan meesha laga saaray marka waxa ka socda galmudug waa wax urku taala reebaya waa wax reebaya raad aad u xun iyo colaado waxaan ilaahay ka baryaynaa waxaas inaysan gacan ka hadal iyo dhiig isku bedelinay si tartiib ah waqtiga yar oo u dhiman ayaxtag elna reeb ay Soomaalidu tiraahday in shidada ay dawladdu ka abuurayso galmudug meesha ku dhamaado sidii wixii ka dhacay baydhabo inaanay isku bedelin xasuuq iyo dadka dhiig inta lagu gumaado la isku laayo marka wax aad iyo aad u falxuna ka socda guud ahaan galmudug habeenka caawa waaye professor Ingiriisi dawladda federaalka ee Soomaaliya dhismaha galmudug muddo 6 bilood ayay ku howlaneed beeli way qanacsi qaarkood ahlu sunna waa la qanciyay hadda doorasho socoto waa lagu qanacsan yahay nidaamka gudoonka doorashada u dhacday musharaxiinta ayaa yara salugsan haatan hanaanka doorashada madaxweynaha u socoto iyaguna maanta ay cabashadu u gudbiyeen adigu waxaan aad sheegayso eedahan iyo sidoo kale rajo xumadan ku muuqanaysa xagee kaaga timid walaalkayow cid qanacsan ma jirto waxa jirta dad la maquuniyay oo laaluush qaar lagu maquuniyay qaar waqtiga laga lumiyay lagu mashquuliyay qaar waxa lagu mashquuliyay on iyo biilaan la dhigay oo la oomiyay siyaasadda laga oomiyay nolosha laga oomiyay ahlu sunna wal jamaa iyo dawladdu is afgarad daba ma dhexmarin wax dhexmar ayaa waxay tahay resourcigi ayaa laga baabiyay ahlu sunnadii waxa lagu kalifay inaanay ciidamadii haysteen iyo maleeshooyinkoodii masruufi karin meel dhexe oo waxa la soo istaajiyay aanay ka gorgortami karin marka waxay noqotay inay gacmaha isdhiibaan waa wada weynaysaan oo habaan gabban ayaa noqonaysaan iyo wax un wixii leedin siyaaqata ayaa u soo baxday marka saasay marka u dambeysay waxaan heshiis lagu sheegi karin isdhiib ay ku galeen dhinaca qabaa'ilkana waad maqlaysay ka qabiilada qaylada ka iimaanaysay cabashadooda waa wada dhageysanay waa wada aragnay waa daawanay qabaa'ilka sida toosha xun loo gacmaha inta loo galay falfalxumadii meesha ka dhacday waxa cabanaya musharaxiinta kaliya maaha dadkii oo dhan baa waxa ka soo haray wax indha taag ah waayo waxay arkeen wax aanay xataa talisadii hore ku arki jirin ay taliskan cusub ku arkeen iyo dawladda maanta jirta marka afka salax ayaa ku soo haray waata Soomaalidu tiraahdo hadii waraabo la arko hadii la arko waa farkaleef ma fahantamay waayo marka ma la oran kara professor Ingiriisi hadiyo goraale qaabka uu dawladda federaalka Soomaaliya eedaha ugu jeediyo ayuu ku saleenayaa hanaanka dhismaha galmudug maya ma taas laan ma taagna waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay ummadayadii iyo dadka iyagii Soomaaliyeed dhibaato lagu geysanayo magaca dawladnimada Soomaaliyeed waxaan ka hadlayno ka qaylinayno waxaanu ka qaylinayna ma aha qabiil dhibaateynaya maamul goboleed kala dhibaateynayo falxumada ugu daran iyo dhibaatada ugu daran waxay dhacdaa marka magaca dawladda waana wixii wadanka burburiyay calaalxumada abuuray dadka Soomaaliyeed kala dilay waxa maanta qurbaha loo daadsan yahay oo qofka Soomaaliga meel walba looga helay ay tahay falxumadii waxa ka dhacay marka wax shakhsi ku eg ma aha waa wax caam ah oo qof kasta oo wax garada oo mutacallima u muuqdo wax dhacaya inay yihiin wax aan noo jiideyn dawladnimo wax noo jiideyn qarannimo in waxa wadanka dawladnimo la raadinaya nabad la raadinaya qaran la raadinaya laba generation wax ku dhawaan sii marayna oo la marxabaabay wadan lagu wadaa marka galmudug waxa ka socdo waxay qayb ka tahay broader siyaasadda guud ee dawladdu ku dulminayso West Hirshabelle iyo Puntland iyo guud ahaan dalka dhan waayo marka hadda dawladda federaalka Soomaaliya dhismaha ay ku howlaneed galmudug gabagaba buu yahay hadda waxa la taagan yahay nidaamkii ugu dambeeyay ee dhismaha madaxweynaha ama doorashada madaxweynaha
taladaadu maxay tahay maadaama haatan laga soo gudbay intii badnaa dhismaha maamulka? dee tala kale ma jirto. taladu waxay tahay dee dadkii loo madax banaaneeyo inuu aayahooda ka tashado. fiiri maamul goboleedyada dalka ka jiro dhan fiiri qiimee sida ay legitimacy u kala leeyihiin iyo taageero aan isla qiimayno. maamul goboleedyada maanta jira kuwooda jira ee maamul leh ee nabad abuuraya ee dadkoodii social services u samaynaya waa kuwii dadkooda loo madax banaaneeyey in aayahooda ka tashadaan ee dadku ayaga uu samaystay gacantooda ku samaystay samaysashadoodana ay ka bilowdeen inay marka hore dhexdooda wixii ay isku hayeen ay ka heshiiyaan oo ay wax ay isu calfudhan yihiin oo ay ducaysteen ay samaysteen kadibna sidaas ay dadkoodii siyaasiyiinta ah ee tartamayay ugu dhiibteen. maamul goboleedyada baaba'ay ee haray ee aan magac u yaalka ah ee dalka ka jira annagoon magacyo tilmaamay waa kuwa jajuubka lagu abuuray, waa kuwa la isku dayay laaluushka iyo foolxumada ay ka dhacda. marka dee galmudug kastoo hadda ka dhaca iyo tala kastoo la dhiiba meel laga dhiiba male waxay soo istaagtay galmudug meel lagama baxaan ah. wax kastoo meesha de wax dad meel geeyay inaysan ahayn waa loo wada jeedaa. marka dee dowladda dambe soo socotaa laga sugayaa inay dib u noqoto ayaha galmudug, inay qabaa'il isugu yeerto marka hore dhowr bilood meel isugu geyso dhexdooda u kala garbaxdo oo ay isu sii dayso ku caawiso inay dowlad dhab ah oo gobol oo ay nabadoodii ka shaqeysa deegaanadana isku xirta inay samayso. wax maanta meesha ka dhacaya waa wax sii kala fogeynaya dhuusamareeb iyo cadaado, dhuusamareeb iyo gaalkacyo, dhuusamareeb iyo hobyo, dhuusamareeb iyo xeraale, dhuusamareeb iyo cabudwaaq, dhuusamareeb iyo gurceel, dhuusamareeb iyo ceelbuur, dhuusamareeb iyo ceelgaras. waa wax aad u jeedo inaan meel lagu gaaray oo ay tahay wax un doorasho laysku dhaafinayo 2020 iyo dad iga codeeya ka soo baxaan dad gacmaha lagu soo qorana meesha la wada geeyey oo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka tirsanaa. dee wax daah oo naga qarsoon ma jiro. marka meesha waa un meel gabagaba ah oo xaaladda soo shaxun dhex taagan.